kormeerkan ee ururada bulshada rayidka ay ku tageen xarunta waxbarashada gobolka Banaadir oo ka socdo sixitaanka imtixaanka dugsiga dhexe ayaa ahaa mid ay ugu kuurgalayeen siday u socdaan howlaha sixitaanka imtixaanka si kor loogu qaado kalsoonida bulshada. Sheekh Yuusuf Tuur Xumo oo ka tirsan culimada Soomaaliyeed ayaa uga mahadceliyay agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir qaabka ay u socdaan sixitaanka imtixaanka. howlaha fiican oo ay runtii meesha ka hayaan oo amaanadii maaragtay lagu aaminay sidii guud lahaayeen ay ku dadaalayaan iyagoo maaragtay imtixaankan markii hore si wanaagsan u dejiyay oo waafaqsan qaabka imtixaanada loo dejiyo wax loo qiimeeyo haddana sixitaanka dadaal badan oo ku saabsan ardaygaasi inaan waxna ka lumin xaq uusan lahayn uusan qaadan sameeyay runtii waana sida loo baahan yahay waxaan leeyahay ku sii guubaabinayaa in dadaalkaas la soo xoojiyo. Ismaan Muxudiin Shaatax, Sahre Maxamed Axmed iyo sidoo kale Cabduqaadir Maxamed Xasan ayaa dhankooda mahadcelin jeediyay waaxda waxbarashada gobolka Banaadir. waxaan rajaynaynaa insha Allah tacaala imtixaanka natiijo fiican inay ka soo baxdo ardayda Soomaaliyeedna wixii la baray ay ku tartameen imtixaanka looga qaaday iyagana insha Allah tacaala inay ka lib keenaan oo rajaynaynaa hadduu Ilaahay idmo. runtii imtixaanadu waxay tahay waa qiimeyn ardayga lagu qiimeynayo wixii uu soo darsay iyo wixii loo soo dhigay heerka uu gaarsiisan yahay kaliya waaye. waxaan noo soo baxay runtii waxay ahayd in maanta imtixaanaadkaas natiijada ka soo baxday uu yahay natiijo ku yimid nidaamka imtixaanka loo dejiyay loona dhisay aysan ahayn natiijo qof go'aan ka gaaray. wax ugu muhiimsan waaye in shakhsi ama macallin uusan go'aan ka gaarin natiijadaada ay ku timaado nidaamka la dejiyay oo loo dejiyay in imtixaanaadka lagu saxo inuu wixii ka soo baxo aad ku heshid waana wax qof kasta oo ku qanci karo. macallimiinta dugsiyada dhigo siiba dugsiyada hoose iyo dhexe inay ilmaha soo dhisaan ilmaha la soo dhiso ayagana lacagta ay qaataan xalaal ha u noqoto annagana dad fiican ha noo soo baxo waalidiinta iyo isku xirnaadana waa ku darayaa gobolka Banaadir waxaan leeyahay haddii imtixaanka naga dhamaado in waalidiinta degmo kastaba iskoolaad ku yaallo mapping aan sameeyno. agaasimaha waaxda imtixaanaadka iyo shahaadooyinka agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir ayaa tilmaamay in casuumaadda bulshada rayidka ay uga gol leeyihiin sidii loo dhisi lahaa kalsoonida bulshada Soomaaliyeed. bulshada rayidka ayaa waxay noogu yimaadeen aan ku casuumnay inay arkaan hawsha imtixaan sixidda maadaama hawsha aan ka shaqaynayno ay tahay arrin bulshadu ama shaqo bulshadu ay leedahay ay tahay waxaan ugu talagalnay inay bulshadu goobjoog ay ka noqdaan qayb ka noqdaan ka warhayaan xog ogaal u noqdaan hanaanka iyo heerarka oo mara sixitaanka imtixaanku taasa marka waxay keentay inaan ku casuumno bulshada rayidka ayaguna ay arkaan indhahooda ku arkaan dabcan si loo dhiso kalsoonida bulshada kalsoonida ardada kalsoonida macallimiinta kalsoonida waalidiinta loo dhiso ayaan waxaan sameeynay casuumaadaas indhahoodayna ku arkeen aaday ugu riyaaqeen anagoo ku kalsooneen hawshaan qabanayna ayaan haddana waxaan isla garanay inay muhiim tahay inay bulshadu ay xog ogaal u noqdaan shaqada imtixaanaadka.